madaxweynihii waxa loo diyaariyay guddi baa laga sameeyay gobolka Minnesota soo dhaweeya si fiican guddigaas soo dhaweynaya waxay yiraahdeen University Minnesota jaamacadda lagu soo dhaweynaya howl weyn baa loo qabanaya loo qurxiyay idinkii aad ugu soo doodi jiray ee ilaa ay qaarkiin ay travel gareeyeen asmar ay ugu tageenna way ka maqan yihiin meeshii ummadii kale laga yaabo inay qabiil ama ugu soo biireen ama habdiimeed ugu soo biireen cusub baa hoolkii buuxinaya si fiican idinkiina guriyihii baad ka joogtaan oo warqada laga yaabo usoo dirtaan oo tiraadaan ma message kaliya taa miyaysan niyad jab weyn ku ahayn dadka dambe ee iyagu markaa doonaya inay Soomaaliya wax ka bedelaan hadday wax bedelaan ay ku dhacaysana jabkan oo kale waa sax way laakiin Soomaalidu dhaqankeeda wuxuu yahay waa gartay sida kale Minnesota ku aragnay waa gartay mar walba ninka imaanaya groupka ama la fakarka ama la qaraabada ama la qabiilka baa runtii waxay noqotaa dadka soo dhaweeya anagu marka waxaan rabnaa inaan sample u noqono tusaale u noqono anagu dad Soomaaliyeed qolo walba lana baan nahay waxaan ugu talagalnay in waxa aan sheegayno iyo message aan sheegayno in mataqaana aanu si official ugu gudbino mataqaana madaxda laakiin waxaan abaabulkan iyo kicintan iyo digdigtan waxaan u aragnaa waa iska baadhi laakiin maxamed aad ma san wax ka dhex galo way la socday gudida halka waxa yimid chief of staff ka Cabdikariin ayaa yimid Minnesota Cabdikariin wuxuu u xil saaray Abdiwahaab uu xil saaray iyo dadkiisii ama isoo qabiilhana ugu xil saarto oo noqdo ninkuu transgareyn karo kasoo anu waan dhiraa waa laga fiicna oo dad kale ay hadeen u saarto ma inuu ninka saarto isagoo isku lafta yihiin laakiin se hadana waxaad moodaa inay xogaa ay sameeyeen guddi ay sameeyeen oo guddida ay ka qayb galiyeen dad badan oo markaa meesh yimid oo ka naashaqay idea fikrada lagu anu waxa jeclaan convention center lagu qabto instead university ga laadana parkna lahayn meel dadku ka galaan lahayn baawurtu adagtahay weatherka xun yahay guddi maamulkooda aad u xun yahay andaliilayo iyo habka ay ku Cabdikariin ku doortay chief isagana dhaliishiisa leh laakiin san waxa aad moodaa midda kale hadana fanaaniinta gobolka Minnesota sida ogtahay shararka hore way ka qayb gali jireen heesa cusub bay sameyn jireen oo wadaniyiin ah I don't understand Sharif inuu xataa wadaad soo hor istaagay hadda isagiina Hillary Clinton waa ka gacanta salaamayay heestiina waa guddidii qaabilayay way diideen baa la yiri Sharifkana inuu gaalada salaamo way u ogoli marka I don't understand Cabdikariin iyo groupkiisa diinta heestan laftigooda ma garanayo laakiin waxa adiga su'aasha hortaala waxa weey maxaad Soomaalida gobolka Minnesota soo horjeeday ee kugu bartay wadaninimada ah sidaad u lahayd wadadkan wadanka Itoobiya intaanu colkeena laga saaro war wadanka aynu u dhiibno dad election ku soo baxay ama aqoonyahana ee warlordkan iyo laga daayo maanta dadku way hor joogan maxaynu u sheegnaa maalin kasta haduu mid inta marba yimaado marba mid isbedelo inaan raalle ka ahayn awoodana ay sii yaraanayso dadkii xagga u badanayaan maxaa talaad u haysa Soomaalida dadka Soomaaliyeed hal talaan siinaya aan rabo insha Allah inaan ku soo gabagabeeyno talada aan ku soo gabagabeeyno waxay tahay Cabdullaahi waa tagay dad baa u ololeyn jiray oo dharka u qaadi jiray oo kabaha u qaadi jiray oo mataqaana cirka marsiin jiray Shariifna wuu tagay absolutely Shariifna wuu tagayaa dadkiina dhalinyarada oo Soomaaliyeed principal yeesha principal macnaha waxa yeelata mabda yeesha qofku haduusan mabda lahayn nin walbo yimaado inuu ku isticmaalo rabaa absolutely marka waxaan rabnaa annagu waxba shakhsiyaad waxba sheegin absolutely waxa muhiim qofka Soomaaliga ah inaan mabda ku raacdi qofkan waxbuu qabtay Shariif iyo teamkiisa cid naga jeclaa ma jirin wadii la asmaraan soconay waqtigeenan u hurnay darbiyadan u istaagnay sawiradiisa soo koofiyad qaban sawirnay cid naga ma jeclayn annagii jeclayn baan waxa hadda idin sheegaynaa war Shariif waxaan ka rabnaa kama hayno Shariif waxaan ka rabnay kama hayno principalka shalaan wanaagii uu noo sheegayana amalkeeda kama hayno marka walaalayaalow dadka Soomaaliyeed principal yeesha qofka aad taageeraysaan mabda iyo sharaf ku taageera waxa uu qabtay ha lagu qiimeeyo qofka waxa uu xumeeyana ha lagu naco qabiilka cidna yaan lagu nicin shakhsiyad yaan lagu nicin nin ku kacsan yaan lagu nicin nin uu soo doortay yaan lagu kicin nin staffkiisa yaan lagu nicin dadkan waxa ay wanaaga inoo sameeyaan aan ku raacno wixii xumaan ay sameeyaan aan ku sheegno hal wax marka tan reason ka aniga hadda igu kaliftay inaan mataqaana as United Somali Diaspora u nimaadno dadku u sheegnaa waxay tahay war annagu nagama ahan shakhsiyad nacayb iyo mataqaana hebel durid nagama ahan waxba nagama ahan waxa ay naga tahay waxay tahay war nimankani waxba nooma soo siyaadinin
ayagana waxaan ka codsanaynaa waxaan idiin shaqayn mayaane wax shaqaynaya ummadda Soomaaliyeed u keena haddiinaan wax shaqaynaya keeni karina adeer iska taga kuwii horeba waa tageene intaasaan warka kusoo gudbinaa haddaynu mid kale kusii darno dhinacan diinta baryahan dambe waad aragtay wadaadadii inay magaaladii Soomaaliya qasan tahay shariifkan laftigiisa anuusan qababa dee in wadaad kale laga horgeeyo baa meesha loo geynaya ma kula tahay in shariif wadaadad badan ay ka soo hari doonaan runtii horta geedkii wadaadaha hawshiisa waxaan inay iskaba dhamaatay waa gartay hadda marxalad laga gudbo hadda waxaan u maleynaa waa qaab guruubaysi waaye hadda ka socda iyo way bateen hadda waxaa jira mataqaanaa iyagiiba xataa waxaan maqlay qabaa'ilo sii kala noqday oo absolutely waxaan maqlay iyagoo guruuba sii kala noqday nin walba aayad quraan soo daliilinaya midkii kale gaaleynaya marka wadaad meeshan hadda ma jire waxaa la isku hayaa waa kursiga xunka haawa kursiga ninkii waxa anigu aan rabo iqaabkan wax u raba sameynina waad gaalowdaa la dhahaya marka anigu arrintan waxaan kusoo gabagabayn lahaa dadka Soomaaliyeed waan baranay maalinba nin baan baranaynaa dowladda hore iyo ragii ku jira waan baranay qolada cusubna waan baranay oo hadda qolada badda iyo barnaamijka hawshooda galay waan baranay marka ninkii dambe oo Soomaaliya raba barnaamijka inuu ummadda Soomaaliyeed wax u qabto haddaadan wax saxsan oo macna sameynaya oo wax positive ah aad sameyn karin hadda wasiir baan ahay iyo madaxweyne aan ahay macna ma sameynayso marka waxaan dhihi lahaa wadaadaduna waa fail garoobeen oo macna ma hayaan meesha kuma hayaan dowladii horena way fail garowday waxaan rabnaa on kaliya in ma aaminsan institution in la dumiyo arrinta aan muhiimka inaan meesha gareeyo ma aaminsan dawladda in la dumiyo ma aaminsan mataqaana baarlamaankeeda in la kala diro waxa soo dhan ma aaminsan laakiin waxaan aaminsanahay wax process inay qaato waa in wax la bedelaa 9 bilood wax dawladii hore ka dambeeyay oo la bedelay oo aan hadda aan madaxweyne ahayn aan garanayno ma jirto marka wax bedela oo wax la idinku raaca keena hanagu khasbinina noo sacbi oo aan ma shaqaynaynin seekay sacbi ana madaxweynaha waxaas waxaan u maleeyaa qof walba oo Soomaali oo dambe qabilka haduu ahaa kii kula dhashay haduu yahay xataa yaa laga yeelinay qofkii wax positive sameeyaan ku raacno waqtay dhinaca banaanbaxyada waxa leedahay la joojiyo isa banaanbaxyada la dhigo wala harta meel dimuqraadiyadaan joognaa ninkii energy hay waxaan leeyahay dadku mudaabixi ku banaanbax kii gurigiisa ka joogi kara gurigiisa ka joogo anagu waa soo daalnay baad leedahay anagu waxaas waa ku soo daalnay haddaan United Somali Diaspora nahayna idaacadahan ka banaanbaxayna aad baad u wasatay gabagabada hadii Allah wada ogolaado anaguna waxaan leenahay media hadaan nahay wixii aad shalay tiri waanu ka record gareynayna wixii hadda tirina ka waana keenay sida Soomaali toog aad ku arki doonto hadii Allah wada ogolaado EB oo shalay toole idinka kula jira groupkeena oo sidoo dhahay hadana uu dhahay midan hadii Allah wada ogolaado Shariif Latigiisa khudbadan way ka soo bixi doonaan Maxamed aad baad u wasatay imaatinka aad nagu soo boqotay Soomaali media iyo studio United Diaspora aad bay mahadsan imaatinka inoo yimaadeen hadii Allah wada ogolaado war shiraaba cakaare man hadii Allah wada ogolaado iyo sida loo dhaweeyay madaxweynaha iyo gudidooda meesha ay la gaaraan waa arki doonaa